بسم الله الرحمن الرحيم. maanta walaalayaal waxaan rabaa inaan ka hadlo mowduuc adag, mowduuc ilaa iyo in badanba laga meermeerisanayay oo ah haddii ummadda loo macnayn waayo, haddii ummaddu ay kol kastiba ay noqoto in majaalista meelaha bunka lagu cabayo uun laga qayliyo oo la yidhaahdo waxaabaa xun iyo xan looma baahna. waxa weeye maanta mawduucan ka hadlay waxa weeyaan waa dhaqankii Ciise. dhaqanka Ciise iyo siyaasadda. dhaqanka Ciise muxuu ahaa? horta Ciise muxuu isku afgaranayo, muxuu Ciise ku ahaa? maxaa u ahaa rukumada waaweyn? ciisaha waxaa rukumada waaweyn u ahaa hal erey oo kol kastiba meesha la soo dhigo oo ah Ciise waa wala Ciise ninna nin carama dheera. waxay ka dhigan tahay arrintaas waa maxay? Ciisuhu male laandheere iyo laangaab, waa dad siman. waxaana simayna waa xeerkaas simayna waxaa la qoray waqtigii dowladdii islaamkii 1540 markay dowladdii islaamkii ay burburtay iyay dadkii aaggan deganaa ay yidhaahdeen wardeed islayn mayno uuno isboobi mayno isdhici mayno waxna kala wada han samaysano. maxaana kala wadee? waa xeer. xilligaa xeerka Ciise kolkaasuu bilaabmay. haddase maxaa deed waxaan nidhi Ciise maxaa isku xidha? Ciise 5 rukun baa isku xidha. 5 rukun ee isku xidha waa maxay? Ciise waxa isku xidha uu ka midaysan yahay waa ceel iyo caws ma kala le. ceel iyo caws ma kala le marka la leeyahay waxa weeyaan ceelka kii birqod ah uu ninku qotay, ninka kale Ciise uma diidi karo. wuxuu ka leeyahay inuu isagu ka hor cabo ka leeyahay uma diidi karo. biyaha waa la wada leeyahay. cawskuna waxay ka dhigan tahay ceel iyo caws ma kala le, dhulka ma kala le ka dhigan tahay. waxa kale oo Ciise mideeya waxa weeyaan waa baryada. ninka Ciise min guban ilaa galbeed ayuu soo socon karaa, uu lugeyn karaa. marka maxaa deed kolkaa ay tahay in dadka uu dhex marayo waa inuu ka helo baryadii. lama qadin karo, waa dembi, waa lagugu baani, waa arrin adag. xilligaa ceel iyo caws baan nidhi, baryadaan nidhi oo ku soo xijisay. maxaa kaloo Ciise u dhaxeeya? Ciise waxa u dhaxeeya waa gaashaanka. gaashaanku waxa weeyaan Ciise haddii halkaa la weeraro ninka kale walaalkii uu soo gurmadkii baa ka dhaxeeya. gurmadkii iyaa ka dhaxeeya. waxaan nidhi ceel iyo caws, waxaan nidhi baryadii, waxaan nidhi gurmadkii. waxa kaloo ka dhaxeeya waxa weeyaan ugaaska ka dhaxeeya. waxa kaloo ka dhaxeeya waa xeerka. shantaasiba waa 5 rukun ee Ciisuhu uu ka midaysan yahay ee ninka Ciise ninka kale walaalkii uu maadartay la wadaago. hadda maanta waxaan ka hadlaynaa rukumada, waxaan ka hadlaynaa qayb ka mida waa ugaaska. ugaaska, dhaqanka ugaasku waa maxay? Ciisuhu sidee buu u dhaqmaa? Ciisuhu waxaa jirayay xeerka markuu samaystay in wax la yidhaahdo gande baa jirayo, gandahana seer uu lahaa. ganduhuna waa 44kaas waxa weeye waxay ka kooban yihiin 8 ceelaya iyo 8 reer boqora
إن أفرت كله هول هولا قاده وقرون هورونه وتضبط sidaas bay gandu afartan ku yihiin marka waxa jiray seere inay meel seere la yiraahdo inay degaan meesha ay gandahaas degaan oo looreeyay ganda khayre ma soo gali karaan isuhu seerahaas gandu degan yahay ma galin waa ka mamnuuc xilliga ganduna qaab u dhaqmayeen imika deed hawshaas ma galayn dabadeed gandihii way saad u ogtii waqtiyadii adka waa kii baabay hayrsanaasay kontoniyadii afartii markuu gandihii uu baabay maxaa day soo haray ciisu waxa uu soo haray in gandihii inuu haysto gandaha gandihii uu baaboo seer ma degayo laakiin markay arin adag timaado sida maadartay dhagar haday timaado oo la kala bixi kari waayo waxa loo yeeraa 44 ka loo yeeraa 44 kii oo bahaa sidaas uu ciisu ku dhaqmaa oo ilaa maanta ku dhaqan yahay marka kalena ciisu arrimaha hadii la isku qabto dhexdiisa waxa dhacda inuu guddi buu u fariistaa oo guddidaaba ka baanto ka hadal guddidaasna maxay tahay waa 12 kii aqal ee ciise wayna u dhanaato sidaas uu ciisu ku dhaqmayay oo ilaa maanta ku dhaqmaa ka xeer ahaan xilliga maanta waqtigan aan joogno horta 44kii dad baa yidhaa ganda jiray ganda ma jiro maanta ganda aqalku ogaaska fadhiya ma jiro ganduhu nidaam loo qabtuu leeyahay 44kaasna nidaam lagu soo xulo ayuu leeyahay dee wax la soo xulay ganda meesha fadhiya ma jiro maanta guddi baa fadhiday 12kii aqal guddidii 12ka aqal ee fadhiday sideedii miyay u shaqaysaa mise uma shaqayso waxa weeye kolka waxa imanaya arrinkan ni sheegayay in waxaan ka hadlaynaa maanta waa dhaqanka iyo siyaasadda ogaasku ma daragtay kaalintiisu waa maxay ogaasku kaalintiisu waxa weeyaan haday ganda tahay haday guddi tahayba ogaasku wuu gudoonshaa ogaasku hagaagii dhageysta wuu gudoonshaa mana go'aamiyo waxa wax go'aaminaya ee arrimaha kala wadaya waa 12ka aqal ee ciise ama haday arrin weyn tahay 44ka waxaan 12ka aqal wixii ay isku raacaan yaadeed ogaasku uu gudoonshayo uu ku duceeyaa waa duceeye horta in sidaa loo fahmo weeyaan oo xeerkeena iyo dhaqanka ogaaskana inaan sidaa u fahmno yaa muhiim marka waxa dhacda ciisu markuu arrin uu fadhiisanayo oo 12ka oday ay tahay 12ka aqal ee ciise ay tahay waxa dhici karta in la isku afgaran waayo dhaqanka ciisu waxa weeyaan war walaalkay midadu ka baydha walaalkay oo soo raac haddii la go'aamin waayo waa laga tagaa bal kala loo qabsadaa balalka ciisuna waa bal toddobaad waxa u yari waa bal toddobaad marka ciisu siduu u dhaqmo siduu wax ku kala goosto sida uu waday arrin dhacdo uu wax ku samaysto waa balka u gaabanna waa bal toddobaad hadduu isku afgaran waayo dee geed kalaan kala yahaadodhan oo geedka waa laga guuraa dee 12 geed buu ciisu lahaa imika way ka badan yihiin oo kulba geed baa loo guuraa ilaa inta deed maba gaadha dee 12ka ilaa inta la isku afgaranayo walaalowna soo raacdo ay imanayso xilliga dhaqanka ciisu horta waa kaa dhaqanka ogaaskuna muxuu ku leeyahay qaybta ogaasku waa maxay ogaasku waa dhaxeeye ogaasku waa gudoonshe
ugaasku waa duceeye intaa wax dhaafsan male xeerkiisana ma aha ugaas xasan baan soo gaarnay wax badanna waan ka duubnay waxa jaridaan ka duubnay waan haynaa marka ugaas xasan waan soo gaarnay waan fadhiisanay gar badan oo lagu haya meesha waan joognay hadday tahay waqtigii aan ay jalab tahayn iyo wixii ka horreeyba waxa weeye kolka dee ugaasku guddoonshu ahaa oo duceeyuu ahaa wixii la isku afgaran waayana wuu isku soo dhaweynayay waxa weeye maanta ugaaska maanta ma duceeyaa ma guddoonshaa mise waa siyaasi dhibaatadu waxay timiday ugaaska maanta siyaasi buu muxuu siyaasi ku noqday in la iska yidhaahdo wax ma waxa dhacday in ugaasku isagoo oo 12kii oday een u geynay ay meesha fadhiyaan in uu Addis Ababa uu yiraahdo saaban tagiyaa hebel bay raaci Allahu naxariistay Maxamuud Axmed Bayd wixii raaci iyo qof kale oo laba waanu tagno waxaan ugaaso 12kaaga oday qaado wali niyarna waa tahay ninkan aad u tagaysidna waa nin maadartay wax badan soo arko siyaasi oo jabhado oo waxyaabo badan soo maray odayadaada ka hayso ugaasku lama yiraahdo uu tagay waxba ma oran waan ka wada aamusnay lagama hor iman waa la iska daay waxa dhacday handana markii dhooytuu Hargeysa tagay maana marka horeysa inuu odayadiisa ka tago Hargeysa tago mar kale inuu halka ka boodo jijiga tago inuu halka ka boodo waa isaga iyo intuu doono waxa weeye imika haddii aan in yar wax nii macnayo walaalahayo anu waxaan arkayaa dhaqankiinii oo sii socda oo kala tegaya ciiso waad isdhici doontiin barito abdiilay baan la dagaalamaynay rag baan ahayn hawl baan la nimidnay Soomaali baan wadanay abdiilay markii aan shirki halkan ku qabanay waa kii khalkhalay waa kii adsaab la tagay adsaab markii la tagay ugaasku dadkii siyaasiyiintii waxaan waday ee hawshan ku jiray wuu iska indhatay wuxuu yiri maya Soomaalina wuxuu ku yiri aniga baa qaadan kara go'aan aniga baad dhageysanaysaan aniga wata aadan farax baan wataa sidaas wax ku dhacay sidaas aadan farax lagu geejijiga dabadeed waxa dhacday in maamulkii dib loo dhisayay gobolada oo dhan iyo sitina ay isla kamid ah waxa dhacday ugaasku inuu isagu ku dhex jiro hebel halka la dhigay hebel halka la geeyay baa timid waka eeg maanta ma fiicno in la isxanto ma fiicno in wax la yiraahdo ciisuu ku kala dhiban gaari waa kii aqalka ugaaska la isku diiday waa kii reer dhan ay ku cadoodeen waa kii la tagay ilaa iyo jigjiga waa kii laga soo laamay waadan faarax aniga ma hayna waa aqalka ugaaska waa kii aqalka ugaaska lagu soo laamay waa kii ugaasku ballan u qaaday yiri ma dartay meesha aqoonta yaan isugu imanaynaa oo ku tashanaynaa waa kii dadkii u baneeyay handana waxa oo dhan baa jira iyo wax ka badan marka ugaasku deed siyaasadda buu sidaa walaalaha u dhexbooday ka joogsadina waa lagu kari waayay mid kale aan ugu dari waxa weeyaan waxyaabo cadcad in meesha la keeno waxa weeye waxa dhacday in ma adartay reerkii hawla qaaday labadii nin ee meesha u fadhiyay oo nin buko oo hawshii wadi kari waayo ninkaasoo nin aad hawla qaaduhuna u jeclaa ahaa oo Muuse Xaaji Fariid oo nin geesi ahaa markuu sanada kici waayay baahadii hawla qaaday oo ninkii ugu daaweynaa uu Buu Xuseen ahaa oo anigana la yiri curad baatay kaama tagaynay waan u tagaynaa ariga daay mayna raac oon raacay ugaaska yaanu tagay
waxaan nidhi ogaasow muuse waa kaayoo dhaqaaq male waxaan wadanaa hebel baan wadanaaye ninkaa meesha noo dhig baan nidhi ogaasku muxuu noogu jawaabay layma yidhaahdo ma keeni kartaan anigaa xaqa leh kii aan doono unbaan keenan karaa kaad inigu keentaan ma noqonayso aniga iyaa ah maad aragtayay ka kuu doono keenan kara kuu doonana diidi kara nigama yeelaya iiga tega dee walaalayaalow arrintaasina sidaasay u dhacday waa in aad sidaa aad u ogaataan dee ogaas iskama cambaaraynayno waxaa weeyaan ogaasku xeerkiisii uu ka tegey waxa dhacday 3 sano dambaba inta maamulka halkaa yimiday ogaasku isagaa wax ka sii noqday isagaa maadartay hantidii qaybinaya isagaa aabaka isagaa ciidamadii raggii wax qaban lahaa kala eryanaya isagaa generaalka ah oo halkan waxaa iyo waxaa ah isagaa kala diri isagaa wax kasti ah haddaan imika in yaraan soo qaadano wallaahi annagoo ka gaabsannay yaan ogaaska u tegnay aniga maxamed aadan bile arrimihii cadaytu markay soo socdeen ogaas sidee baan nidhi dhibtan baa jirtee meeshii garbaciisana waa tan bilo dhan bay xidhan tahay magaaladay naga saaro han wada hawl galno gebigeennuba annagu waan galaynaaye aan saraacno oo aan hawl galno oon ciisaana kicinno bal sidaa inaan wax ku badbaadin karna aan eegno in ciidamadan dawladda deegaankana bal iyagana aan sidaan u hawlgeli lahayn aan samayno hankaa duubnay hadal ogaasku waxaa oo dhan dhagowma yeela dee walaalayaalow sidaad u wada ogtihiinba waxa in la qarqariyana ma fiicna garbaciise intaynan dhiman way nala soo hadleen dhowr cisho ka hor 7 ka hor war waxaanan leeyahay ama sidaa yeela oo afar ku biira ama ka baxa meesha dee maamulkii baa lala soo hadlay maamulkii ogaaskii baa la hadlay ogaaskii dadkii wuxuu ka yidhi aadan farax baan la hadlo abiy buu la hadlay ninima taabanayo ninowba ha dhaqaaqin in cagjar baan la hadlo waanu joogay in cagjar baan la hadlo wuxuu yidhi generaalkii ciidankan la hadlo ninima taabanayo ogaaska laftarkiisa yidhi anaa generaalkii la hadlay oo waxaas waxba kama jiraan buu yaa waxa waxba kama jiraan waa propaganda dadkiina fadhiyaa la yidhi waar ha laga joogadiina waana naga dhagaysan waaye wixii ka dhacayna dee waa kii xasuuqa ka dhacay taa iyada halkaa iga dhig waa imikii haatan waa imika iyo haatan waxa weeyaan 3 sano ayuu ogaasku maadartay in cagjar iyo aadan faarax iyo uu xidhiir la lahaa oo waan soo wadnaa iyo maantaan wadnaa iyo sidan baan ka yeelaynaa ciidankan baan keennay iyo hubkan baan wadnaa iyo waan ridaynaa dhulkiyo waxaan ku kari weynay waxaan nidhi marka ay sanad socotay anigii maxamed aadan bile waa kan nool yahay maanta waan wada joognaay wuuna nool yahay ninkii maadartay rashiid xaaji iyaan madaxtooyada ku helnay annagoo warqado qornay oo odayada u yeernay oo dacweynayna rashiid xaaji wuxuu yidhi war waa kaa madaxweyneyna aadan faaraxna waa kaa miiskay fadhiya walaalayaalow aniga un baad i cambaaraynaysaane arrintan waa arrin siyaasadeed warqada soo qoraan idinku 100 goor baad soo qorteen waxba kama qaban karno maamulku ha soo qoro ha yidhaahdo hanana kala saaro annaga iyo cafar warqada ha soo qoraan waa kaa maanta madaxtooyadii baad joogtaane gala oo la hadla dee waan galnay waan la hadalnay in cagjar wuxuu yidhi aadan baa maadartay wada hawshii odayadii baa xitaa aan qaar la hadalnay waxay yidhahaan warqadii aadan faarax miiskay guu taallaayo iminku waa saasay ku dhammaanaysaa waa la tabinayaa dee wax ka hirgalayna ma jiro 3 sano dhibaatada naga gaadhay meesha 100,000 dad ku dhowaa barakacay intaa oo ceel intaa oo hantiyaa dadkii laga qaatay
intaa oo goor baa garbaciisa lagu laabo la boobay oo la dilay oo wax loola haray ay jirin hanti laga burburiyay hantida maanta dadka baadiya waa malaayiin inta barakacday waa 100,000 dad ka badan saddexdaas sano inta dhimatay waxa weeyaan dee qiyaas ahaan imika ahaan buuggii mahaye waa dad ku dhow 3,000 oo qof inta maadartay cag beeshay inta maadartay naafada iyada iska daa hadalkeyga xilligaa waxaa weeyaan ilaa maanta hanti wixii meel kale laga helay iyo wixii la hayayba waa naga waxa weeye dadkii ka soo barakacay dadkii xasuuqa ka haray ee biki fadhiya ee erar fadhiya dadkii biki fadhiya ee afcasa fadhiya ee mulli fadhiya ee xasuuqii garbaciisa ka haray waa kanoo waa kii la soo duubay 5 cisho ka hor dee dadkii gaajo iyo dhibaato war wixii hantiyaha aw halkay mareen gaajiyo dhibaato haysata iyo meeshuu la leeyahay waa iskool nooga baxa iyagoo waxba loo diyaarin iyagoo la dhex tagayn maamul hadday tahay iyo hadday tahay odayaba marka waxa weeye anuu waxaan leeyahay walaalayaalow deed war dhaqankiinnii hodhow ciisow yaad qaylqaylin waxa weeyaan kab ogaasahay waa ta halkaa maraysa iyadaa wax kasti ah cidna ma ogolo cidna ma qaadanayso tii shalay u dambayso Hargeysa tagay aw odayd may la socdeen lama socdo xilliga dhaqankaagii inuu sidaa u burburaya qaybtii ogaas kab ogaas ciisow waa inaad garato hodhowna waa lagu kala kici dhibaataa ka iman waxaad ogtihiin maanta reerka la yiraahdo reerka Ciise Xasan Cabdalle waa kuwa suldaan qabsaday maxaa keenay inay suldaan qabsadaan muwaadin bileeyo baan nidhaana cid dhageystay waayeen ugaasku la hadli waayey uu dhageysan waayey uu la tashan waayey dee waxaa dhacday kol hadday halkaa gaadhay war annagu dee annagaa isku tashanaynaa timid ciisaha inta kalena wuu daba socdaa Sacad Muuse anaguna isu shira reera kaloo isu shira anagnahay dee waxaa weeye dee ma inta ciisuhu uu kala tegayo oo suldaanna la wada samaysanayaan sugnaa misooleyse waan isa saxnaa oo sixitaan baan samaynaa midda kale wax aan maanta aan ka yaabay baa jira Facebook aan ka arkay nin af Ingiriis wax ku soo qoray oo Ciisa oo demoodee nin weyn oo xusbadna u hayay aan hayay ilaa imikane ninkaasoo waxaan ka yaabay yiri ogaasku siyaasadana isaga xukuma waa nin weyn oo daa waniga iga weyn ninkaas hadduu dhaqankiisa garanayn uu dibad ku raagay annaga barayna dhaqankiisa dhaqanka ha barto waxa weeyaan ummadu waxa isku hayay waa dhaqanka haddii la kala guuro dhibteeda ay leedahay maxaa keenay deed maanta ninka daadii inuu yiraahdo ma dartay ogaasku siyaasadana uu ka qayb gali karaa oo siyaasadda isaga xukuma ninkan qabyaalad baa qaaday ma garash la'aan baa qaaday waxa weeyaan waxaan leeyahay waxyaabaha caynadaaya in la iska ilaaliyo in la is saxana way fiican tahay in dhaqankaaga la bartana way fiican tahay ninka siba dhaqankiisa inuu barto way fiican tahay marka waxaan anigu ku soo gabagabeynayaa ciisow dhaqankaagii kab ogaas ma jirto ogaasku waa siyaasi ogaasku wax kastuu yahay maanta haddii aad ka tashan weydo beritoole waad burburiyood ooyi ogaasku dhibaatooyin ku sameeyay maxaa ka mid ah shalay oo u dambe maxaan ku dhaa ninkii mahdi giire loodhanaya dil dhaba la keenay nin geesiyuu ahaa nin ragaliman u ahaa nin si fiican waxu wada u ahaa ninkaa waa la iskugu tegay
ولا سوتك مش اللي جاي إمك متى نول وحويا ودكتور يوسف دكتور يوسف دبت هالكا كجرت وكقبت نكستو أوجيه دب كستور دعم أمبولانس دير محل دير دوود دير هبين درار وأردي أنت وحبوها عندنا فران كوهي وحي سومالي صغر رسول فران كوهي دي وقاش يسوي محل سكوت ديدين وهانتي واحد سكوت ديدين هانتي دا كان إيا ما يناه هانتي دا داد كان بانوها ياو أنيقو دي دولد باناهو دولد يكل الله سوء رورية داد كاليه وانكوهم قالينا عناقا وحن سمينين إيا مايا لأنك أوحو هميني إنو نقضو مدحويني كوحيقين كمان دي مدحويني كوحيقين وانكا والغلط دقالمي markii lagala dagaalamay waxa dhacay in deed ninkii dibadda loo soo tuuray nin kala jira ma jecleen in hadan ku soo qaado waqti kale aanu dhiganaya iyadana kulkaygaan soo qaado iminkii hadda waxaan leeyahay ciisow war ciisow tasho meelaha bunka laga cabo inaad ka qayqaylado tiraadaan ogaas ma halkani maxan ma looma baahna waran isku laabanno oo wixii aan saxno inaan dana majlisada barjaha ogaas ma maxay ma hal leeyahay looma baahna han isku nimaadno oo tashanno maanta anu baaq banu soo jeedinaya dhalinyarta wax baratay wax garadka ciisaha baaqan soo jeedinaya waxa weeyaan han isku nimaadno war armee naas aan ka tashano tabaqankan ka tashano tani ogaaskan ka tashano wixii dhibay dhulkeena jirtana ka tashano salaam alaykum